لكن هلا الصومالي أما ما في قاعد كله marka waxa weeyaan maanta waa maalin lagu qaaliyo runtii anu hadda xaggeed baa ka kowda luuli xagga looga dabaaldegay hamarkuulana kowda luuliyo insha Allah waxaan rajeynayaa laakiin nastago in hal meel laga dabaaldego oo wax weeyaan maanta waa maalin inuu wada wadaagno haddaan Soomaali nahay aan u baahanahay inaan isweeshano annaga dhan isku nimaadno marka insha Allah aan ka wada shaqeyno arrinta qiiraduna halka ayayna nooga ekaanin aniga magacaygu waa Leila Cali Cilmi waxaan ahay musharax u taagan xilka baarlamaanka ee dalkaanito waxaan u tartamayaa xisbiga Milyan Party wiil kale musharaxa jooga oo isku xisbi nahay oo isaguna degmada u tartamaya waxaan rajeynayaa maalintaas inaan Soomaaliya soo wada baxdaan aad codka bixisaan gobolka wiil baa u sharaxan degmada wiil baa u sharaxan iyo anigoo baarlamaanka u sharaxan waa 3 muwaadin oo Soomaaliya hana hakradin anagu waa dadaalnay marka codkiina ku xisaabtanayna anigu hadalkaygu ma badna sideeda banaanba marka aad baan idin salaamaya dawaadkaadka iyo dabaaldegaynu sii wadanaynaa waqtigu doorashada waa 9 bisha 9aad weeyaan waa maalin axada degmo kastaba xarun lagu codeeyo leedahay qof walba oo wadankan adrees ku leh ama sharci ku leh warqad ayaa guriga uga soo dhici doonta warqada waxa ku dhigan xarintu meeshu goobtu ka codeyn lahaa marka nin walba warqada eego oo inaad ilaalo u gashaan warqadaasi dawladda waa idin la dardaarmay khayr badan baa idin rajaynaya Soomaaliya waa idin wada salaam waa idin wada jeclahay